kusoo dhawaada falaqeynteeni ciyaaraha mar kale iyo Maxamed Daacad channel waxaan maanta nii haynaa falaqeyntii ciyaaraha dhameystiran baryahan dambe waxyaabaha la iska dhex maray baraha bulshada gaar ahaan farqiga u dhaxeeya Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi labadan laacib oo adduunka dhan qabsaday oo haddana da'ad ku jiro oo haddana wili qaab ciyaareedkooda wili si fiican yahay ayaan ku falaqeyn doonaa iyo sidoo kale ciyaarihii kale oo ciyaaryahanada kale oo kooxaha kale ka dheelayaan sidoo kale diiradda waan saari doonaa sida ciyaartooyda Liverpool, Arsenal, Manchester United ciyaaryahanada kale dhammaan waxaan fiirin doonaa si fiican diiradda u saari doonaa ciyaartooy walba wixii uu mutaystay sidoo kale inta waxaan iga codsanaynaa subscribe inaad noo saartiin waa walaalkiina Maxamed Daacad fadlan nagu dhiirigeliya subscribe like comment iyo share nagu qabta asxaabtiina kale oo jecel ciyaaraha inay mar walba warbixintooda dhageystaan fadlan u sii gudbiya u sheeg gareeya fadlan u sheeg gareeya like tana hana hilmaamina muuqaalada badana aan soo dhaxdhino waxaan mar walba niga codsanaynaa inaan like ka hilmaamin badana asxaabtooda daawada laakiin like ma saaran like fadlan waxyaabo badan ay wax noo taraysa adiga wax kaama jarayso fadlan waxaan ka codsanaynaa inaan like noo saarto sidoo kale falaqeynteena gudaha ayaan sii geli doonaa ciyaaryahankan Lionel Messi oo ninkan da'da 34 jirkan reer Argentina ayaa baraha bulshada qabsaday darat markii uu oo PSG uu ka dhaliyay Man City uu ka dhaliyay PSG goolkiisa u horeeyay uu furtay Champions League dhammaan tartamada oo dhan oo PSG goolkiisa u horeeyay ayuu dhaliyay walla uu mucjiso u dhaliyay haddana sidoo kalena baraha bulshada waxay ku haystaan waxa kamid ah ficilkii uu sameeyay oo ahayd markii lagu tuuray free kick ama goal kulaad markii lagu tuuray ama free kick markii lagu helay Man City ay heshay dadkan oo derbiga jiifanayo qofka macnaha baaska amal oo hoos darbada laga bixinayo amal ayuu Messi uu seexday hoos ayuu seexday waatan asoo hoos seexday intaas wuxuu lahay darbada hoos ayuu qayaanay laakiin Ronaldo midda ma sameyn karaa maya Ronaldo waa isla weyn waatan asoo Bruno Fernandes uu rigoor ku qabsanayo uu leeyahay rigooraha qaadanay adiga ilma yara tahay badana wuxuu ku fiican kan reer Portugal waa nin laacib laakiin badana wuxuu yasaa ciyaaryahanadiis kale ayuu yasaa badana wuxuu u dheelaa shakhsi ahaantiis ayuu ciyaaraa guul haduu gaaro team uu gaarin waa shakhsi ahaantiis ayuu xamaashaa halka Lionel Messi uu mas'uuliyad iska saaro oo mar walba uu xifaaltamo sida kooxdiisa ay u badiso farqiga u dhaxay labadaas way Messi wuxuu leeyahay koox ahaan halka Cristiano Ronaldo uu leeyahay shakhsi ahaan marka labadaas ciyaaryahan farqi weyn ayaa u dhaxay farqiyaas u jeedin nin shakhsi u dheelay iyo nin koox u dheelay marka taas ayaa marka Messi sababaysa inuu gool yar dhaliyo iyo gool qurux badan dhaliyo taas ayaa sababaysa laakiin halka Ronaldo ciyaar walba shubtu ku hay waxaana caabinaysa gool kulaadka iyo shakhsigiisa ayuu wax maalinayaa koox iyo waxaas danihiis ma ahan halka Messi uu dhaxad intuu imaado baloon shaqaysanaya inta baas inta ku dhac inta saayeel baloon diilmaha ka bixi boos qaada dhiibo inta yeel farax darba isku dhig hadda heer Messi wuxuu gaaray oo gool free kick la helayo inuu darbada hoose la dhax bixinayo inuu sida bas amal isku dhigo dishootaha oo xirto waxaan isku saways inuu teamkiisa gool ay ku hogaaminayaan hadda ma Ronaldo miya midan ka yeeli doono mid macquul gal ma ahan Ronaldo midda yeela midba Ronaldo camaamadiisa la dhicir taamuushiye wax uu sameeynayo malaha shakhsi ahaantiisa xamaasho ayaa la Ronaldo laakiin sidoo kale waxaan ku amaanaynaa amaantiisa kale oo goolasho badan u dhalanayo goolasho quruxda badan u dhalanayo Ronaldo asayna warantiisa waa sheeganaa sidoo kale Messi waa nin ciyaaryahan weyn marka falaqeyntan xiga ayaa si fiican falaqeyn doona recording ay leeyihiin